بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. شيخ عبد الرزاق إلهي كعفيو أمانة بدنا وشيقيو دي باس الله أقول نقول تامر كان دافو حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقلت المام يذاق طعم الإيمان وحادد ميي أما حلاوة الإيمان لبا حديث الصحيحة حديثك الشيخ وآخرية حديثك أنس والنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان إيمانك معان كيسا وحادد ميي صدح خصلو نك لغا xadiidku waxa uu sheegayaa iimaanku inuu dhadhan leeyahay dhadhankaasina inuu macaan yahay xadiis kaloo badanina waa tilmaamaysaa مثلا xadiidka al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ee muslimka ku yaala ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان بود ددن كإيمانك وحاد دميي حديث كان إنه شوقنا وحو شيقيا ددن كاسين حلاوي الحلو وحمعان إذا إيمانك إلهي الرومين تيس يقين تاسي هدي قلبي قدكتو ددن باي أولادا يقفك مسلم كا وحودك ما آنو شرين ددن باي أولادا يقفك مسلم كا wax kaloo dhagdhagu ma aanu jirin sida cunadu carabkaaga ugu dhadhanto haday macaan tahay ayay qulubta dadka muuminiinta ee dhabta u dhadhantaa cibaadada iyo iimaanka iyo ilaahay weynayntiisa iyo cibaadadiisu sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya inuu iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa dhadhamiyey khaslaadkaasi عدة لقى هلا هداد مركا أدو ددن كاويدو نفتادتهم وحد وليو باهنتينا التربية دي بسغور نقطه وحدو باهنتينا نفتاد الدب أدو قتشف شفته وحيابا باهن لقى شفه qofku markuu xanuunsaday caadiga ah afkiisu wuu qadhaadhaadaa dabeetana waxa asiilayaan macaan haddii loo dhiibo ayaanu macaankiisa dhadhamin qof xanuunsanaya waxa laga yaabaa dad sokor u dhiibto inaanay wax macaan la dhadhamin macnuhu maaha inaanay sokortu macaankii ka tegey ee waxa weeyaan aalatu dhawq baa khalkhal ku jira qalabkaagii wax dhadhamin jiray carabkaagii wax dhadhamin jiray ayaa xanuunka ku dhacay daraadeed wixii macaanka ahaan macaan u dhadhaminaynin haddii marka ay cibaadadu kula macaanaan weydo iimaanku kula macaanaan waayo khalalku wuxuu ka jira xaggeennee maaha inaan iimaanku macaanayn nabigu calayhi salaatu wassalaam waa kii xadiidka saxiixa ku tilmaamayey adduunkiina kan waxaa lay jeclaysiiyaa nisaau watiib wajucilat الsalaatu salaadana waxaa laga yeelay buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ishaydu miday ku doogsato ishaydu miday ku doogsato ayaa salaadana laga yeelay buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam walidaalika ayaa maalan salaadoo kale marka dhibi qabsato nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa xasabahu amru fazaca ila asalaa arrin hadduu warwargeliyo salaada xaggeeda ayuu carari jiray ama arixnaa biha yaa bilaal u leeyahy macnaheedu waxa weeyaan cibaadaadku iyo iimaanku iyo ilaahay inaad ku xidhnaataa dadkaasi ahlu taqwaa dhadhan bay u leeday al-unsu billaahi wax u dhigmaa ma jiro qofku inuu rabbigii weheshado rabbigii inuu weheshado wax u dhigmaa nolosha ma jirto qofku hadduu rabbigii weheshigiisa uu helo
qalbigiisa xasila adduunkaan warwar ku haynin waxa dhacayaan dhib ku haynin arsaaqda intuu helaabo qanaaco ku qaba adduunyadaynu joogno dhami qiimo badan uma samaynayso waxaase qiimo u samaynaya rabu samaawaati walardi inuu ku xidhnaado sidaa awgeed tana hal qiso haddaan idiin tilmaamo xadiis aan rajaynayo in abu daawud ku yaallay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa way dagaal tageen qolaa dagaal la isku soo helay waa soo noqdeen iyagoo soo socda ayaa nin gaalada ka mid oo malaa dadkii wax ka soo gaadheen ka mid ah ayaa wuxuu ku nadray anoo muslimiinta dhiig ka daadiya mooyaane inaanan hadhin laakiin de waa nin quro oo raadco ah uma badrheeri karo markaa wuxuu eganayaa un cid dagan uun habeenkii muddaa la soo socday markii la seexanayay ayaa laba saxaabi la yidhi gaadh ka qabta idinku dabeetana dadkii uu iska seexday labadii ninee gaadhka hayay ayaa midi kii kale ku yidhi waan yara laama doodayaaye ee kici haddaad wax dareento muddo markii la joogay bay dareemeen meeshu inay nabad iska tahay kii hore wuu seexday kii dambana salaad buu galay riwaayaadka axaadiista qaar ka midi waxay leeyihiin suuratulkahf buu akhrinayay salaadda isagoo ku jira ayaa ninkii gaalkee raacdada ahaa ee gaadada ahaa ee daba socdaa arkay ninkan taaganee salaadda ku jira iyo dadkii kaloo aan dhaqdhaqaaq ka jirin intuu meel ugu soo gabaday ayuu leebkiisii qaansadiiba u cabbaystoo gamuun buu ku dhuftay gamuun baa ku dhacay saxaabigii dabeetana wuxuu necbaystay inuu salaaddiisa gooyo dhadhan buu ku haystay ninkii gaalka ahaa haddana kii labaad buu ku kiciyey waa ku dhacay bay yidhaahdaan haddana waa ku kiciyey dhowr leeb markay ku dhacday ayay soo gaadhay xilligii rukuucda wuu rukuucay marka uu dhaqdhaqaaqii ninkii inuu rukuucay dareemay ayuu is yidhi de waa lagugu soo bixiyo gaalkii uu iska tegey dhiiggii ninkan ka dareerayey ayaa qulqulkii wuxuu u galay ninkii jiifay hoostiisa kii baa dhiigga arkay markaa wuu kacay isagoo leh subxaana allah war maxaad ii kicin weyday salaaddii markuu dhammaystay wuxuu yidhi waxaan ku jiray salaad baan tukanayo ilaahay baan la hadlayo waxaan necbaystay inaan munaajaadka rabbi kala gooyaa baan necbaystay yacnii ninkan nabarradu ku dhacayaan ee haddana dhiiggu dareerayo ee taagan mowqifkaasi xarajka ah wuxuu dareemayaa iimaanka dhadhankuu ku haystaa kale macaan nabarradan ku dhacaya walidaalika waa bacdu salaf waxaa la sheegaa adin baa la yidhi baa lagaa qalayaa markaasay yidhahdeen bunji cab bunjigu waa bahalladan la ysku suuxiyo yacni bunjigaa cab waad suuxaysaa waad maandoorsoomaysaa markaasa qalitaanka lagu bilaabaya wuxuu yidhi oo caqliga ma tegsiiyaa markaasaa la yidhi haa caqligu wuu tegayaa markaasuu yidhi war bunji cabbi maaye salaad baan geliya markaan salaada galo wixii idinka idiin muuqdo sameeya salaad buu xidhay bay yidhaahdaan intuu salaadda ku jiraa la qala yacni salaaddaa uu galay dhadhanka iyo macaanka uu ku haystay daraaddeed baa waxaanu dareemaynin birta lagu jarayo xataa culimmadan sayniskee dambe waxyaabay tiltilmaaman ay yidhaahdaan maskaxdeennu waxay soo daysaa hormoonno tiro badan oo qaar ka midi ay qofka bini aadamkaa dejiyaan ama suuxiyaan siiba maalan markaad dagaalamayso dee qof istishaan nabarraa kugu dhacaya nabarradaa intaad dagaalka ku jirto o dhan dareemi maysid hadhow marka laydinkala qabto aad fadhiisataa unbaa meel walba ku damqanaysaa oo halkan naa walba kiibaa igu dhuftay baad leedahay markaad dagaalamaysa maxaad u ogaan weyday waxay dhahdaan hormoonnay maskaxdu soo daysaa marka ay qaabkaa galayso qofka dejiyo oo sakhraamiyo oo ilowsiiya nabarrada ku dhacaya waxay ugu badan yihiin bay dhahay maalan dumarku markay umulayaan
umusha ilaahay baa ku dhaafiya oo lowla aanay hormoonnadaasi soo da'aynin haweenku inay umulaan way adkaan lahayd saa daraaddeed qofku cibaadada markuu dhadhankeeda helo sideeduu u degaa alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub baa ilaahay tilmaamaya war hooya ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayaa quluubta ku xasishaa marka waxaan leenahay sida uu nebi moxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam iimaanku dhadhan buu leeyahy daaqa طacma aliimaan kanna waxaa la yidhi halaaثun man kunna saddex ninka ku jira wuxuu helayaa xalaawat aliimaan xadiid kale dhadhan buu leeyahy buu yidhi xadiidkanna wuxuu sheegay dhadhankaasi inuu macaan yahay macaankaa waxaa helaya sifaadkaasi axaadiistu tilmaamayaan ee ay culimmadu inoo sharxi doonto ama xadiidkaasi kale ku yaalla man radiya billaahi rabban wabilislaami diina wabimuxamedin nabiya waxaasoo dhan cagsigeeda waxaa la tilmaamayaa iimaan la-aantu inay cidhiidhi leeday waman yacshu can dikri الraxmaani ilaahi subxaana wa tacaala waa ka tilmaamaya waman yucrid cidda ka jeesata ilaahay dikrigiisa wuxuu helayaa maxay maciishatan danka nolol cidhiidhiya cidhiidhigu waa wax qalbiga laga dareemo markaa marna qofku macaan buu dhadhaminayaa raaxatulbaal buu helayaa rida nafsi buu helayaa ilaahay u dhowaanshiisiiyuu helayaa marna sakht iyo werwer iyo walbahaar iyo mashaakil ku tiro bata iyo nolosho aan dhadhan u samaynaynin wax kastoo hantiyo maadiyo u haysto bini aadamku meeshuu raaxada ka dareemaa waxa gacanta ku jira maaha waa waxa qalbiga ku jira gacanta waxa ku jira kuwa ugu xoolaa badan leh marar badan bay ugu warwar badan yihiin dunida dadka istiila la sheega waa طabaqa alwusta iyo wixii ka sarreeya faqradu inta badan isma disho waxaan leenahay markaa iimaanku macaan buu leeyahy macaankaasi inay tafsiiliyaan culimmadaan u daynaya anigu waa u furfurayay une وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين